waan ka adkaystay waxa ku wax alla wax koolo aan ka qabanaya ma jirto يا wax alla wax koolo aan ka qabanaya ma jirto تاوكو خلطنته هاي ma cad qadro ma ku khaldani qofku maadaama marka maaragtay ogolaato ninkii xaaskaysiiba tahay waa khaldantay ku soco cabdiqaadir adu markaan dhowr maalin sidii iskula buuqbuuqaynay markii dambe adu koolkii sidii baan adu iskaga ogolaaday waan ka qabtay cabdiqaadir sidii marka sheekada ahayd 2 bilood uu joogay ayaa wuxuu igu yiri waan laabanayaa insha Allah biidmillah waxaan rajaynayaa 2 bil kadib ama 1 bil kadib kolba sida aan ku soo laaban karo inaan ku soo laabto khayr baan ku rajaynayaa wuu iga tagay hadda cabdiqaadir oo adkaanaysaa suuqan maalmaha kamid ah u baxay waxaan arkay bahal inaanoo quruxda caynada loo eegi joogiyo jamaalka shahrada waxa ka muuqda iyo iftiinka ka baxaya aanan maleeynahay أعوذ بالله تتلقوا قبو siyo lay qabo caadi cabdiqaadir هاي cabdiqaadir ninkii markaan saa isku aragnay isna wuu iga helay ana waan ka helay wuxuu iga qortay lambarkayga sidii baan lambarkii ku siiyay wuxuu igu xiriir baan sameynaynaa ninka uma sheegin in la ay qabo on xaasahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هبلا وحاس مسحة ومسوى غلط يا وغلط وقصلك وصحوة وانت سبحان الله سبحان الله that's not good my sister كسر cabdiqaadir ninka isaga uma sheegin maxaa la dhahaa in la ay qabo waxaan ku wadi inan baan hay hadda ayuun baan maxaa la dhahaa aan meeshan imiday gurigan aan deganahayna waa guri familigaygu leeyihiin wana laygaga maqan yahay إنا لله وشكرا دي باستورة دوكرا واقرتي تي باستورة دي دقيستي أنا سالا إي قلعي متسنك كدي دي ساي قشي لو مرينا قفا دعوتي شكراس لو قول في كسا cabdiqaadir marka maxaa la dhahaa aan sida aan ku wadi ninkii uu qaatay hadalkaygii wax shakay kama gelin muddo dhan ayaan xiriir lahayn ninkaas cabdiqaadir maalinkii oo dhan ilaa habeenkii waqti gurigeyga waqti uu ka xidhay yahay ma jirto 24 saacadood gurigeyga oo bambuuya wuu imanaya halkaas aan ku wada sheekaysanayna halkaas uu iigu imanaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cabdiqaadir ninkaygu maadaama igu dhahay 2 bilood baan ka maqnaanayaa ninkaygii baan wacay waxaan ku wadi xabiibi waxaan rabaa inaan maxaa la dhahdaa hooyo yar xanuunsan aan hooyo u tago waad igu 2 bilood kadib baan ku imaanayaa waxba 2 bilood kadibna ha iman bil kadibna ha imanin waqtigan anigu ku soo waceen ku dhaahdo hadda kaalay baad imanaysaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cabdiqaadir haye buu igu yidhi maxaa la dhahdaa ninkii hadalkiisaasaan iskula waafaqnay deeta ninkii marka saa ku wadi inan aan family nahay ayaa waxaan soo dejiyey gurigeygii thank you qol ka mida gurigeygii baa soo dejiyey inantan waxaan ku wadi ninkaygii waan isku dhacnay hal dalqad baanu ifuray xaafadiina uma sheegin adiguna markaa waxaan rabaa inaanad u sheegin xaafadii ilaa anigu arrimaha ii socda arrimahayga aan ka dhamaysanayo hal qof wada wadaay karta ninkaasi dalqadii furay ma jirto hooyada uma sheegi kartid aabana uma sheegi kartid hayaba igu tiri inantaan wax isku ahayn waxaan ku ninkaa inaan isku soo noqonay rajaynayaa oon ka dhamaysto layn iyo waxaas marnaba xaafadda ha ii sheegin marka waxaan rabaa ninkan aan guriga keensanaya ee ii imanaya inay dee gabar aan la qabin aan iskaga dhiga iyada iimaankaad bashay maadaama ninkii dalqadii furay ninkan aan iska soo xariisanay dee aan saaxiib nahay oo nin xidhiir naga dhexeeya uu yahay cabdiqaadir sidii buu iigu imanayay ninkan aan hadda bartay ee dambe aan ninkayga ahayn waa nin ilaahay maal siiyey isaguna lacag iskale ehelkiisuna lacagay leeyihiin hadda haddaan ku dhahdo waxaasan hadda u baahanahay cabdiqaadir daqiiqadaa wax ilaahu mu hadda hurdo ka soo kaco isagoo xataa soo cadaysaninba daqiiqad la igu imanay baabuur uu soo kaxaysanaa wixii aan rabay baa la ii keenaya
cabdiqaadir waxaan isku dayay maadaama ninkan kale aan jeclaaday oo xidhiidh na dhex maray ninkayga intuu doonada kasii dabeecada duwanna uu noqday wixii aan ninkayga aan ka waayay dabeecado badan oo aan ninkayga ka rabay inuu yeeshana uu yeelan waayey ninkani uu ii yeeshay uu kan kalena uu yeelan waayey inaan ninkayga warqadda ka qaato iska furo laakiin isagu wuu diiday inuu ifuro cabdiqaadirow ninkan kale ayaan aada u jeclaaday ninkaygii qalbigaba waan ka masaxay inuu jiro inuu joogo inuu dhintay inuu nool yahay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim haya cabdiqaadir waxa dhacday in maxaa la yidhaahdaa inanta guriga ila degan aan habrodaaga nahay aan ku idhaahdo ninkaasi markuu ku soo waco waxaad ku tidhaahdaa asma way baxday asma way maqan tahay asma sidanay samaysay adu waa inaad iga mashquulisaa markuu soo wacayo labadeeduba wuxuu moodayaa inaan aniga habrodaagtayba aan gurigii hooyo joogno laakiinse ma joogno gurigiisi baan labadeeduba joognaa oon degannahay cabdiqaadir laba taleefan baan samaystay taleefan u gaar ah ninkaygu inuu iga soo waco iyo taleefan u gaar ah saaxiibkayga cusub rabbi yasir haya dad waxa dhacday maalmaha ka mida inankii oo ila fadhiya inuu isoo waco ninkaygi taleefanka markaa waqtigaa uu soo wacayo qolka aan wada fadhinay ayuu meel ka yaalay markaa saylan bigdema ma ku xidhin waxaan geliyey saylan gariira uu gariiray maadaama meel sanqaraysa uu ku jiray gariir xooga buu sameeyey saaxiibkadeet wuxuu ku dhahay taleefan baa dhacay ee taleefanka qabo taleefankii cabdiqaadirow ma qabanin waxaan ku waday anigu marihii taleefanka walba habrodaagta yaala hay kaco usoo dhiibo u geebiy guuri waan kacay taleefankii waxaan u dhiibay habrodaagta waxaan ku waday intaad ka qabato waxaad ku tidhaahdaa hadday asmay baxdayo bannaankay wax ka doonatay adeeg bay bannaanka ka doontay cabdiqaadirow saa markaan ku wadhi isaguna nin aada u musayr badan oo u shaki badan buu ahaa mar alle markaan saa ku idhaahdo taleefanka waa marka aanu kala jarinba aanu u dhigiba waayo cabdiqaadirow sidii marka sheekadii ahayd ee ninkanna dee muddo sanada uu marku maxaa la yidhaahdaa guriga uu imaadaba guriga markuu kani imaado waxaan idhaahdaa xabiibi ma rabo in maxaa la yidhaahdaa ay habroodaago ay dee mar walba aragtay inagoo wada joogna oon iyadana ka mashquulo waa inaad iska tagtaa anaa kula soo hadli doona iyadana waqti baan siinay inaan la sheekaystaan rabaa xaafadii bay soo wacaysa iyagana inaan sidoo kale la hadlaan rabaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaaladaha kugu jaajo anu sheekada intan sugaya waa intaad cadaabaha jiidhayso imse la mida sheekada wax kale uma dhegeysanayba inta ilaahay cadaabayo ku soco cabdiqaadirow ninkaygu sidii sanad buu ku maqnaa muddo sanada wadankii cagamuu soo dhigin maadaama anigu aan ku dhahay ilaa intaa ku soo wacay ku odhanaya xilligaas kaalay hayla soo hadlin san ha samaynin isaguna run ahaantii uu xanuunsaday odagaygu dhakhtar buu galay qalniin baa lagu sameeyey lug baa qalniin lagaga sameeyey intaasoo dhan ma dhihin xataa halkan aan kugu baxnaaniyo kaalay haddii aad yaro ladnaatay xanuunkii kusoo gaadhay aan dee kaa bogsiiyo oon dee ku ilowsiiyo ilaa intuu xanuunsanayay ilaa intuu dhakhtar kasoo baxayay intii oo dhan adu sanad bay isku qaadataa maba wacdidba maya wicitaan waan la hadlaa salaamu calaykum calaykum salaam khayr nabad dee markuu soo waco weliba isaga koolashiisa badan aan arko ayaan anigu u jawaabaa laakiin biilka u baahanta waa wacdaa biilku maba dhahaba isaga soo dir waa isagaa soo diraba wax biil iskugu imanna ma jirto cabdiqaadirow inta aan kan la hadlay inta aan ninkayga la hadlayo 100% waxaa ka badan intaan ninkan kale aan isbaranay aan la hadlayo maadaama iimaanku kaa maqan yahay iimaankayga ma maqnay waan jeclahay cabdiqaadirow deta waxaa dhacday maxaa la yidhahdaa in odagayga uu imaado sanadkii markuu dhammaaday uu imideen haddaba jabbu wuxuu ka joogaa ninkaygii iyo ninkan kale seen u kala qarin doonaa maadaama ninkan kalena uu gurigii bartay mar walba gurigii uu iigu imanay ninkii kala wacay waxaan ku odhi
anigu wadankii baan aadayaa hooyayaan u tegayaa thank you hala هلا hooyaan u سولو tegayaa شرفتي هاي hooyaan u tegayaa hooyo maxaa la dhahdaa markaan u tago haddii ilaahay qadaro inaan adu ilaa 2 bilood 3 bilood 4 bilood intay igu qaadataba aan kusoo maqnaadaan rabaa walaalkayo Yurub ka imanaya